shirkan maalgashiga ganacsiga Afrika iyo Turkiga oo socon doona muddo 3 cisho ayaa waxaa si wadajir ah u soo qaban qaabiyay hay'adda Al Nasri iyo SRS. muddada uu soconayo waxaa diradda lagu saari doonaa maalgashiga ganacsiga soo kobcaya ee Afrika iyadoo Turkida cusubna ay doonayso inay abuurto hannaan maalgashi oo ay labada dhinacba ka faa'iideystaan. xubno ka socday dawladda Turkiga iyo axsaabta siyaasadeed ee waddankan ganacsato iyo mas'uuliyiin uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa furitaanka shirkan goobjoog ahaa. Cabdinaasir Cabdulqaadir gudoomiyaha hay'adda Al Nasri oo soo qaban qaabisay shirkan ayaan ugu horreyn weydiinay ahamiyadda shirka. shirka haddii aan briefir ka bixiyo Turkish African Investment waa shirkii ugu horreeyay ay Soomaalidu si official ah ay uga soo qayb galaan shirkadaha Soomaaliduna ay toos meesha uga noqdaan official xubin ah. ujeedada aan ka leeyahay waxay ahayd in Turkiga iyo shirkadaha especially ee geeska Afrika inay toos isu arkaan ha u badnaadaan shirkadaha Soomaalidu oo aan doonayno in xiriirka aynu ku wanaajino mas'uuliyiin fara badan iyo shirkado fara badan oo Turkiga oo daneynaya in ay la tacaamulaan ayaa jira meelaha kale ee Afrika qaybaha ka kala mid ah. ujeedada ugu muhiimsan waxa weeye inagu inaynu wasiil ama aynu u noqono between Afrika iyo Turkiga maadaama hay'adeedu ay legally u leedahay department u qaabilsan isku xirka labada dhinac iyo shirarka caalamiga ah. aad baan ugu faraxsanahay inay mas'uuliyiin kala duwan ee ka kala socdo meelo kala duwan ay ka soo qayb galaan waana soo dhaweynayaa cid kastoo timid shirkaas. xubnihii ka hadlay madashan oo isugu jira mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Turkiga iyo xisbiyada siyaasadeed ee waddankan ayaa dhammaantood isku raacay in Afrika ay iminka tahay suuq muhiim ah dawladda Turkigana ay ku baraarugsantahay arrintaasi. wasiirka kalluumaysiga ee Puntland iyo gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Turkiga ayaa dhinacooda bogaadiyay shirkan waxa ayna sheegeen in shirkan uu faa'iido weyn u yahay ganacsiga Soomaaliya. bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ku hadlaya magaca madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo wafdigan aan ka mid ka ahay horkacayay waxa sharaf weyn noo ah inaan ka soo qayb galno shirkan oo ujeedadiisu ahayd Turkish African Investment Trade Summit 3 casho soconaya dhawaan waxaan Puntland garow ku soo gabagabeynay madasha maalgashiga Puntland oo markii ugu horeysay nooceeda lagu qabtay Soomaaliya oo dhan sharaf weyn bay noo tahay inaan marka 19 shirkadood aan soo horkacno oo aan keenno Turki si ay berri goobjoog uga noqdaan berri wajiga labaad oo shirka wuxuu galayaa business to business inay is hor fariistaan ganacsi isweydaarsan karaan maanta wax badan baa isbedelaya waxaan xasuusanaa madaxweynaha Turkiga oo aan aad ugu mahadcelinayno markii ugu horeysay Soomaaliya yimaaday in abaar xun dalka ka jirtay gurmad xilliga ku yimi maantana waxaan u nimay maahan gargaar waxa weeye ganacsi waxa weeye investment inaan ka soo qayb galno shirkan caalamiga ah shirkaas oo ay soo qaban qaabiyeen hay'adda Al Nasri Foundation iyo hay'adda Turkiga ay mataana yihiin runtii shirkaas oo shir caalami ah oo ka soo qayb galeen 40 shirkooda ka soo qayb galeen wixii ka badan marka aad iyo aad baan runtii u soo dhaweynaynaa maxaa yeelay waxa lagu hadlayay ganacsiga tijaarada ka dhaxaysa wadamada Turkiga iyo wadamada Afrika marka aad iyo aad ayaan runtii u soo dhaweynaynaa because wuxuu ahaa shirkii ugu horeeyay oo maartay hay'ad Soomaaliya ay soo qaban qaabiso oo heer caalami gaara oo heer gobol Soomaaliya laga wada yimiday gaara ayuu noqday. inkastoo heshiis isdhaafsi ganacsi ah ay sanadkii la soo dhaafay wada saxiixdeen Soomaaliya iyo Turkiga haddana weli ma jiro wax soo saar muuqda oo ay Soomaalidu leedahay kaasi oo loo dhoofiyo waddanka Turkiga. dhinaca kalese badeecooyin laga soo saaro waddanka Turkiga ayaa loo iibgeeyaa Soomaaliya. hase yeeshee ganacsatada Soomaalida ayaa xilligan doonaya inay ka faa'iideystaan fursadaha maalgashi ee Turkida waxaana qaar ka mid ah ganacsatadii iyo xubnihii ka qayb galay shirkan ay u warrameen TV-ga Universal. runtii hadda rugta anagu aanu asaasnay ee ka bilaabatay Ankara Istanbulna ay ku xigi doonto waxa loo aasaasay waa su'aasha hadii weydiisay waxa yeelay anigu maalintii la ii dooranayay khudbad aan ku soo baxay waxa ka mid ahayd ay dadka badan igu doorteen in anagu aanu nahay dad shaqaale u ah Turkida ee aanu ahayn ganacsi laakiin marka ganacsi la yiraahdo waa inuu isdhaafsi jiraa labada dawlad wax isdhaafsadaan taa marka inaga dhankeena oo aad u yar inta halkaaba la keenaba ayay dantu nagu kaliftay inaan rugta asaasno gudoomiye doorano sidaan aniga ugu soo baxay gudoomiye waxaan ugu soo baxay ama aan u ballan qaadana waxay ahayd in aan ka shaqeeyo sidii aan xiriir uga dhalin lahaa ganacsatada Soomaaliyeed ee danaynaysa inay awoodooda xoog badan saarto Turkiga
sida iyagaba awoodooda inoo saareen ka soo qayb galnay shirka maalgashiga shirkadda Jibcon baan soo qayb galnay maadaama yahay African Investment Business oo lagu talagalay in wadamada Afrika iyo Soomaaliya inay ka soo qayb galaan shirkan anoo ku metelaya magaca Jibcon kana socda Ballan Media kulankan maanta Ankara ka dhacay oo looga hadlay maalgashiga Turkiga ee Afrika oo badankiisu dadka ka soo qayb galay ganacsato u badnaayeen ayaan anaguna ku metelay Ballan Media oo xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho kulankan oo sida guud looga hadlay maalgashiga Turkiga ee ku aadan Afrika oo intiisa ugu xooganna hadda kulanku uu diiradda saaran yahay Soomaaliya ganacsatada ka soo qayb gashanaya ee Soomaaliya tahay waxyaabo badan looga hadlay oo lagu lafaguray anaguna meesha kulankan oo maanta bilowday socdoona ilaa 2 maalmood soo xigta waxaan u imiday Ballan Media inaan meesha ku metelo xogtaana meesha ka jirta iyo fursadaha meesha ka banaan oo dalkeena ganacsatada uga banaan inaan meeshaan ka sameeyno waxa la yiraahdo maxaan ku raadayay xogtaas inaan dib ugu la noqono oo ka faa'iideysano Abdullahi Ahmed Nur Universal TV Ankara